shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa waxa ay dareenkooda iyo aragtidooda ka muujiyeen muranka dhinaca badda ah ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya iyadoo dhawaan dawladda Kenya ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ay u gudbisay in dacwadaasi aysan ogoleen isla markaana ay ku baaqday in wada hadal lagu dhameeyo murankaasi iyagoona shacabka Muqdisho ay tilmaameen in badda Soomaaliya aan wax gorgortan iyo wax hadal aan laga gelin isla markaana ay ku qanacsan yihiin wixii ka soo baxa maxkamaddaasi dawladda Soomaaliyana baaq u diray hadaba hadaladoodii waa kuwana qaar kamid shacabka ku nool Muqdisho arintaas ayada adan fikirka ka dhiibto runtii dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed biyahaas waa biyo Soomaaliyeed wax gorgortana kama geli karno badeen Afrika gumaysigu mar ayuu kala qaybiyay qaybtii lagu kala qaybiyay ilaa hadda ku kala qaybsanta biyahaas waa biyo ka tirsan dhulka Soomaaliya annaga iskale waxaan u arkaa inaan wax xaraan muharram كمان وضع هذا كرو وبرديدي وبردي أنا لهين ومدي أدونكم ويوكتي وعيوجين جماعة قرماك أما محكمة كذا حيسد وليجو إن أي حقق هذا يسويه سأل جد بيلوية دولة الصومال إنه حكى عصر إنه سيبض كجو جنين دولة كينيا بدأ إنه إيه ما عنده كان قررت المجال دولة كينيا إنه حلاها هاي فرعنا يخاذ وحناقشين مجران دولة الصومال حقوسيات كسرت دولة الصومالية يا مدحda waxaan ku baraarujinayaa annaga Kenya lama galana wax gorgortana dhulka annaga leh Kenya waxaan ugu wada waxaan ka aqbaleen maahan wadankeena anaga iskale badeena anaga iskale faraha noo qaado wadan badeena ii maahan waxay wadana wax oo la aqbal kar maahan dalka annaga iskale Kenya ma lahan waxaan ku qanacsanahay maxkamadda waxa ay go'aan soo saartay dalka annaga iskale hadaan ahnay muwaadin Soomaaliyeed inta aanan dhiman layka dhaxgaline daar waxaan ku marayaa inaan ku dhintaayo ka dhiciya cadawge hadalkan dareen kale ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Muqdisho ayaa waxa uu imaanayaa xilli dawladda Soomaaliya dacwad ka dhan ah dawladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda caalamiga ee Hague isla markaana dhawaan dawladda Kenya ay sheegtay in aysan arintaasi raali ka ahayn maxkamadda Hague ay u gudbisay in arinta wada hadal lagu dhameeyo Axmed Cumar Sheekh Nuur Cable TV magaalada Muqdisho